isaga waxaa loo arkaa mucjisada fanka ee waqti xaadirkan wiil leh mustaqbal ifaya oo dhanka nolosha ah xidig faneed oo iska soo qaaday dhulka hoose ilaa uu xidigaha sare tegay shaahna ku soo cabay dadka qaar ayaa ugu yeera raabarka ama fanaanka ugu saameynta badan xilligan Soomaalida oo dhan ruuxa aan ka hadlayno qof kale maahan waa Sharmarka Cabdinaasir oo dadku ay u garan og yihiin Sharmaboy caawa shaki weyn ayaa ka jira inuu fanka isaga baxayo in kale isagoo xitaa macsalaameeyay taageerayaashiisa ku xirnaa ee heesihiisa aad kula socday halkii ayuu Sharmaboy u socdaa waa su'aasha ugu miisaanka culus ee la isweydiinayo haatan si aan sheekadan kaaga dabageeyo fadlan haddii aad jeclaan lahayd in Sharmaboy uu fanka isaga baxo like saar muuqaalkan siina faafi si qof walba uu ogaado xaqiiqada aan weli sida dhabta ah loo daxqaadin ee ah ka bixitaanka Sharmaboy ee fanka sidoo kalena ku soo biir page-keena si aad ula socoto xaqiiqooyin badan oo laga yaabo inay ka qarsoon yihiin fanaanka ugu saameynta badan waqtigan Soomaalida meega qaadatay ee heesta ee Sharmaboy ayaa isbuucan gelgelay baraha bulshada kadib markii heesta Lantalia uu la soo qaaday saaxiibkiisa Maslax Mideeye oo 3 maalin oo kaliya ay ku daawadeen in ka badan 1 milyan oo qof taasi oo ah rikoor ay adag tahay in la jibiyo xitaa heesta daqiiqadaha ugu badan isaga ma lahan laakiin qayb yar oo madadaalo leh ayuu ku qurxiyay heesta ay soo wada qaadeen isagii saaxiibkiisa erayada heestaasi waxaa ka mid ah farmaajo filada ma ka baxay mise baraanki lee waaye tanina malaha waa sheeko kale oo uu baraha bulshada rabo inuu ku soo jiito Sharma fanaankan da'ad yar ee talentiga leh mar walba wuxuu ku heesaa erayo ay dadku si dhow u xifdin karaan waxaana uu caan ka noqday Soomaalida oo dhan sabab la xiriirtay in jawi kale iyo waddo kale uu u maray si uu ku noqdo fanaanka loogu hadalhaynta badan yahay Soomaalida oo dhan hadda waxa uu macsalaameynaya taageerayaashiisa isagoo goordhowna cadeyn doona qorshihiisa ku aadan fanka Sharmaboy waxa heesihiisa ay dhaafaan malaayiin daawadayaal ah xitaa carruurta yaryar ee aan gaarin 10 sano ayaa garanaya erayada ku jira heesihiisa maadaama ay dhagahooda ka badatay maqalka codka Sharmaboy iyo erayadiisa sahlan ee qof walba uu xifdin karo fanaanka caanka ah Sharmaboy ayaa bartiisa YouTube-ka qaybtiisa community ku soo qoray qoraal u dhignaa sidan goodbye oo ah fariin macsalaameyn ah micnaha goodi ku duuganna si dhab loo fahmin laakiin hadalka saaxiibkiisa Maslax Mideeye uu ku soo qoray isaguna qaybta community-ga YouTube-kiisa ayaa abuuray muujad kale oo la yaab leh kadib markii qoraalka Maslax uu u dhignaa sidan waxaan aad uga xumahay in fanka walaalkayga iyo mataankayga Sharmaboy la nacsiiyo in laga xumaanayo inaan isku imaanana waan ogaa laakiin go'aan in lagu gaaro inuu fanka ka baxo waa mid la qaadan doono taasi waxay u muuqataa in Sharmaboy uu go'aan mar horeba ka gaaray inuu fanka isaga baxo maadaama uu soo qoray goodbye balse hadalka Maslax Mideeye ayaa macquulgal ka dhigi kara in weli ay jirto suurtagalnimo laga qabo in fanka uu sii wato Sharmarka Cabdinaasir Sharmaboy sida ka muuqata hadalka Maslax Mideeye Sharma ayaa fanka gabi ahaanba nacay waxaana haray kaliya go'aanka ugu dambeeya ah in dadka loo cadeeyo ee qaadashada go'aanka dhabta ah sida laga fahmi karo hadalka saaxiibkiisa Rumaad go'aanka ugu dambeeya waa mid aynu wada sugayno aniga adiga iyo qof walba oo taageero waa Sharmaboy oo heesihiisana aad u jecel waxaa laga yaabaa inay jawaabtu noqoto waxaan ku wada fikiraynay ah in Sharma uu gabi ahaanba fanka ka baxo ama in erayadan lagu tilmaamo barankii yeelkeeda Sharmaboy ayaa dhawaanahan la filayaa inuu gaari doono 1 milyan oo raacayaal dhanka YouTube-ka sida qof walba uu dareemi karo Sharma waxa uu goordhow noqon doonaa qofka ugu raacayaasha badan ama qofka ugu subscribers-ka badan Soomaalida oo dhan haddii uu sii joogtiyo bandhigyada uu ku soo muujiyo bartiisa YouTube-ka haddaba ilaa dhabaadka haddii aad nala joogto adiga ahaan sidee ayaad u arki lahayd in Sharmaboy uu ku dhawaaqo inuu fanka isaga baxo haddii aad ku farxi lahayd muuqaalkan love saar sidoo kale haddii aad jeceshahay in fanaaniinta inta ugu badan ee Soomaalida caanka ka ah fanka isaga baxaana muuqaalkan like saar siina faafi oo ku soo biir page-keena adigoo like iyo follow saaraya wad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan mikrofoonkan waa mikrofoonka Blue Yeti Megan wuxuu ku duubayaa cod midka ugu fiican ugu fasaxsan oo isla mar ahaantaana dadku ay ku raaxaysan karaan waxa uu leeyahay intaan arkaysid culays badan ma lahan waxaad awoodaa inaad boorsadaada ku ridato goob walba oo aad tagtidna aad ku isticmaasho mikrofoonkan aad u jeedid waxa uu ka saacidayaa in shanqarta hareeraha meesha aad wax ku duubayso uu ka yareeyo
microphone-kan wuxuu aad ku caawinayaa haddii aad tahay qof saxafi ah ama qof kale oo wax u soo gudbiya bulshada qaybaheeda kala duwan haddii aad youtuber tahay iyo haddii kaleba